ninkeeda ayaa soo qarxiyay gabadha idinkaga muuqata halkan waxaana rabaa muuqaalkan inaan tusaale ahaan u soo qaata ragga guursada gabdhaha kadibna soo qarxiya gabadhan hamiinkan waa ay faraxsan tahay waxa ayna habbi ku dareemaysaa ninka ay guursatay gabadhu waxa ay ka soo jeedaa Hargeysa Somaliland halka wiilkuna uu ka soo jeedo Muqdisho oo yahay reer xamar inta badan reer Somaliland waxa ay yiraahdaan reer xamarku waa dad aad u dhaqan xun oo iska duuba muuqaalo isla markaana isa soo qarxiya waxaana ku tusinaysa gabadha halkan kaga muuqata oo aamintay wiilkan isla markaana jeclaatay ee ka soo duubay muuqaalka oo xaaskiisa la baashaalayo kadibna uu galiyay galeriga teleefankiisa halkaasi ayaana lagala baxay kadibna waa la soo qarxiyay asagu waxa uu sheegayaa inuusan gabadhan muuqaalka ka soo qarxin balse lagala baxay teleefankiisa dadku se waxa ay isweydiinayaan maxaad markii hore uga duubtay muuqaal noocaas ah xaaskaaga adigoo oo jawi la qaadanaya haddaba haddii aad nin xun guursato waxa uu ka duubi doonaa muuqaal waxa uuna ku soo dhigi doonaa social media gabadhani waa gabar caan ka ah barta TikTok isla markaana soo boosti garaysa muuqaalo qobka ciyaar ah waa reer Somaliland ku nool Hargeysa Somaliland wiilkan ayay isjeclaadeen waxa ayna ahay wiil haysta hanti aad u fara badan waa ay isguursadeen balse asagoo oo jawi la qaadanaya ayuu ka duubay muuqaal kadibna miidiyaha ayuu ku soo qarxiyay dhacdadani waxa ay ka dhacaysaa Somaliland waxa ayna reer Somaliland ku leeyihiin dhaqankii reer xamar ayaana soo galay waxa ayna noo keeneen muuqaal duubistoodii sababtoo ah inta badan reer Hargeysa waxa ay ku eedeeyaan reer Muqdisho inay yihiin dad aad u dhaqan xun muuqaalana iska duuba waxaase ku tusinaysa ninkan gabadhiisa lacagta badan ku baxshay isla markaana ka duubay asagu gacantiisa muuqaal oo jawi la qaadanayo qoftiisa kadibna soo qarxiyay waxa uuna ku ceebeeyay gabi ahaanba qof kasta oo joogtay TikTok asaga oo uu arkay in gabadhani ay iska caadi tahay in muuqaal laga duubo xaaskaaga isla markaana miidiyaha lagu soo qarxiyo marka hore ayaad ka dareemaysaa ninkani inuu yahay nin dayuus ah kadib markii xaaskiisa uu u ogolaaday iyadoo oo saatan u labisan inuu guursado meeshan ku yaabaan fadhiya hadda Liina ayaa soo qarxiyay Liina waa la soo qarxiyay fiidiyogaasi uu soo fakaday horta waa xaqiiq inuu soo fakaday ee Liinoy yaa ku soo qarxiyay qalbi teeda kale su'aasha kaliya aniga maskaxdayda ka guuxaysa waxa waay aan rabo inaan weydiiyo dadkaaneed adduunkan jooga 2026 maxaa qasab ka dhigay nin naag isqabo qolkooda breefadka ku jiro inay fiideo iska duubaan ama camera iska dawadaan ama cod iska duubaan yani why reason why sababtaas aan rabaa inaan horta ogaado magaalada wada joogtiin nin naagtiisa tihiin waa wada degantiin maxaa koos gareen karo inay gabadha camera inta la soo qaato laga duubo ama ay is duubaan labadoodaba maxaa koos gareen karo sida la sheegay oo xaqiiqa waxa waa wiilkaaneeti xaas kale laha oo Liina ku horeysay so everything can happen telefoonkaneeti qof kale gacantiisa gali kara anaga qof kuma dambaabeyno oo qof binaami dusha kama saareyno dulmiga laakiin wax kasta dhici kara laakiin maxaaba koos gareenaya gabar inay intay camera ama nin intuu camera soo qaato xaaskiisa xalaal oo guri Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu wada dhan bax walba bareef uu ka dhigay maxaa sababaya in yani camera loo qaato la duubo midii maskaxdeedii qilaad ah oo maskaxdeedii qaadil ah wallahi illa imaantan maskaxdeedii saa ugu rogayay waa midaas I'm sorry wax qalad aad iyo aad u weyn waay labadoodan uu ka dhacay almuhiim hadda Liina qoraal aad iyo aad u dheer soo qortay ee soo dhigtay barteeda TikTok ay dhahday aniga reerkeyga waxaas ma burburin karaan exactly qalbi waxaas reerkaaga burburinin laakiin de laga digtoonaado kaamiradan iyo teleefoonadan la iska dawado already gurigiina wada joogtiin waa isqabtiin laakiin kaamirada la iska dawado inaysan wax fiican ahayn ka digtoonaada hadduusan asaga ugu talagelin inuu xaaskiisa oo maradiisa oo xaaskiisa inuu yacni soo qarxiyo hadduusan ugu talagelin wax kasto kala dhici karo ma fahantiin wax kasto oo kala dhici karo telefoonka ka dhumi karo maya ee qof cadawgiisa gacanta uga dhigi karo maya anything kan habeen ku xisaabtama almuhiim inta ku xisaabtama okay so I'm so sorry gabadha waxa ku dhacay familkeedana waxaan la yaabay macaanto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku adkeeyo dhagaha ka furaysa waxaan maqlaysidee reerka waa iska heeso dadkaana kulligood waa bilaa reer walaalaysan bilaa reer ku dhigin adigana markan sida saxda u wada hadalno markii aad cadowgaaga labada indhood iskaga eegayso waxa jira dad si hoose
aadan isla lahayn waa ay kaga qaraabanayaan ama sidoo kale waxa ay kugu sameynayaan wax xumaanta ah sida hadda gabadhan oo kale ninkeeda ayaa qarxiyay soona geliyay miidiyaha balse maalina kama aysan filanaynin muuqaalkii ninkeeda uu ka duubay inuu soo geli doono miidiyaha isla markaana ay dad u daawad doonaan maadaama ay tahay gabadhu gabar caan ah isla markaana dadka meega qaata ay tahay waxa ay meeg u qaadan jirtay gabdho badan oo ay caan isla yihiin barta TikTok balse hadeertaan aad ay u falaqaynayaan waxa ayna ku diganayaan waxa gabadhan ninkeedii ku sameeyay waxaan arkayay yaa habrihii guul daraystay ee nolosha ku guul daraystay tiyaro nolosha ku guuleysatay halkan degan inay ku marmareen yaa tayareen liina daadax la yiraahdo adeer macaan waa naa guuleysatay naagtuna markay guuleysato waxa ka xanaaqa all of the world doqon kasto guul daraysta ka xanaaqda liina daadaxay qalbi media ina saaw ruxdo waadiga iyo laandheeranimadaada ma garatay naagaha ka masayirsanay guul daraystay ee nolosha ku guul daraystay ee sharafta ku guul daraystay ee quruxda ku guul daraystay ee mustaqbalka loo qariiray qalbi looma joojiyo ma garatay waxaan ku leeyahay keep going laabta ka xarago ma garatay waxaan ku leeyahay waxa soo kale waa la iska dhageystaa caruur iska hadashiyo ka soo qaad meel cidla arrinka liina daadax ee baraha bulshada lagaga wada hadlayo in sawir lagala baxay mobilkeeda xilligii arooska dadkii masayirsanaa baa waxa sameeyay maadaama tiri iyo duuduuba oo qof u dhiibatay telefoonkeeda la duuduubayay sawirkii lagala baxay ee madaxa u qaawanaa ayaa la sii baahiyo lagu daray wixii de awalba lagu hagaajin jiray codna la saaray waana clip yar video intii baa marka baraha bulshada la geeyay intaasina naag waxaas u joojinaysa maaha oo naag isku kalsoon naagtaas qoraal bay idin soo dhigtay inaad aragteen baan u maleynaya naag ninkeeda waqti la qaadata goorma ceeb noqotay tir waa run naag ninkeeda waqti la qaadanaysaa oo ninkeeda adeecaysaa oo ninkeeda faaninaysaa goorma ceeb noqota adeer naagtaasi sharaf leh baa loo guursaday idinku meel iska soo saara umadiina yaacaysa ee gabadha ceebta la raadinayo naagtaasi sharaf waa loo gogol fadhiista walow suuriyadii wax iga soo gaadhay waa loo gogol fadhiista si heer sare ana wax waa loogu qabtay xeeriya kama maqlayn arooskeeda meherkiina xeeriya la keenay arooskeedina xeeriya la keenay kumanaan foostaad ku soo kiciseen markay guursanayso la yiri ninku sagaal ciyaala meel u fadhida afar iskooyana meel buu fadhiyaan shan iskooy balaayo dhan baad soo kiciseen gabadhiiba toddobadii waad u diideen liina daadax laakiin hadeer ya ma waxaad keentay inaad taas sharafteeda heli maysaan walaalayaal ha ku daalinina anaa idinku leh anigu haddaan waxaan ogahay iyo waxa aan sheego been kama sheego xaqiiqada been kama sheego liina oo dee mintuxa walaydan u helay ciriyo dhul haddaad u baxdaan kuwii waxaa sameeyey beenta ana way iswaraysanayaan sharciga iswaraysanayaan